aan ku bilownay hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay in dal shisheeye uu lahaa qorshaha qaraxii 28-kii bishan ka dhacay Ex-Control Afgooye ee duleedka magaalada Muqdisho. qoraal kooban oo la soo dhigay barta ay NISA ku leedahay Twitter-ka ayaa lagu sheegay in madaxda qaranka ay hay-addu u gudbisay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka Soomaaliyeed loogu geystay magaalada Muqdisho 28-kii December uu qorshihiisa lahaa dal shisheeye. qoraalkan laguma xusin magaca dalka la tuhunsan yahay, balse hay-addu waxa ay sheegtay in weli baaritaanka uu socdo. baaritaanka socda si loo dhammaystiro waxaan la kaashan doonaa hay-adaha sirdoonka caalamka qaarkiis, ayay barta Twitter-ka NISA ku sheegtay. ilaa iyo hadda ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. haddaba waxaa arrimahan aan ka wareysanayaa xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo horey u ahaa madaxa sirdoonka Soomaaliya ee NISA, waxaa hadda uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. ku soo dhawow marka hore barnaamijka xildhibaane. waa dhawahay Ridwaan, waana mahadsantihiin VOA. sidee NISA ay ku ogaatay in dal shisheeye uu ku lug lahaa qaraxii Ex-Control ayay kula tahay? horta waa marka koowaad waan ka tacsiyeynaynaa qaraxaas iyo khasaarihii dadka Soomaaliyeed soo gaaray. waxaan kaloo runtii la yaabnay maantay fariin 48 saacadood kadib qaraxii 28 dhacay oo dadka tirada badan ay ku leedeen in NISA dhowr maaragtay line oo qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka kuna sheegtay qaraxaasi dawlad shisheeye inay ka dambeysay. marka arrintaas runtii arrin la yaab leh way noqotay. ilaa haddana wax faahfaahin kamaysan bixin. waxaan ognahay in madaxweynuhu uu ka tacsiyeeyey argagixisada Soomaaliya ka dirirtana uu ku eedeeyey, in ra'iisul wasaaruhu ka tacsiyadeeyey, sidoo kale ku eedeeyey al-shabaab, in gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha golaha shacabka, gudoomiyaha aqalka sare iyo dhammaan dadkii mas-uuliyiinta ahaa oo taliyaha booliisku ka mid yahay inay arrintaasi markay ka tacsiyadeynayeen ama xogta arrinta qaraxaas sheegayeen inay ku eedeeyeen kooxaha argagixisada. marka ma garanayno soo toosidan dambe iyo soo baraaruga NISA iyo xogta meelay ka keentay. wax faahfaahin oo ummadda ay la wadaagtayna ma jirto. waxaana u malaynaysaa maaragtay xog hordhaca oo ilaa hadda caddeyn sababta ay u soo bandhigtay iyo waxay haysaba aan la garanayn oo shaki badanna abuuri karta inay bartooda soo dhigeen Twitter. waa gartay kolley dawladdu baaritaanka weli inuu socday sheegtay, laakiin NISA haddiiba ay degdegan wax ku ogaan karto, dadka qaarkii waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxaa looga hortegi waayay inta khasaarahan xoogga faraha badani aanu dhicin. horta aslan Ridwaan waxaa weeye al-shabaab qaraxyadoodu waxay soo socdeen 10kii sano la soo dhaafay. cid isqarxisa oo aan al-shabaab ahayn, qof nool oo ama keligiis isqarxiya ama gaari wada ama weerar isagoo isqarxiya oo aan al-shabaab ahayn nama soo marin. marka waxaan ognahay inay goobo muhiim ah weeraro xoogani ka dhaceen oo 2 toddobaad ka hor ay soo weerareen madaxtooyada meel saaran oo hoteelka Israel. waxaan ognahay gudoomiyihii gobolka inuu u dhintay weerar noocaas ah oo argagixiso oo weliba agaasimo ka mid ah agaasimayaashiisii gobolka ay isqarxisay lagu sheegay. dhammaan waxaan ognahay waxyaabahaasoo dhan mar walbaba in al-shabaabkuna sheegan jireen, laakiin dabeecadaha al-shabaabku waxaa ka mid ah mararka qaarkood marka khasaaruhu shacabku u badan yahay inaanay sheegan, oo laga bartay qaraxii December bishaan oo kale dhacay 2009kii Shamow, hotel Shamow. qaraxyo shacabka tiro badan ay ku leedeen oo la mida inaanay sheegan baan soo barannay, oo runtii dhaqankoodana sidaas weeye. markii shacabka ay arkaan inuu carooday oo shacab waayahay arrinta Twitter-ka NISA ay ku soo qortay haddii aan ku noqono, yaad u malaynaysaa in qaraxan uu ku lug lahaa? kolley dowladda Soomaaliya waxa ay ishayaan Imaaraadka, ma dhici kartaa in iyaga loola jeedo? waa dhici kartaa. ilaa haddana kama hor dhici karno oo marka la leeyahay 48 saacadood kadib baa qarax noocaani kale dowladaha ka mid ah ay ishayeen dowladda Soomaaliya ama dowladaha lagu tuumayo inay xiriirka la leeyihiin dowladda Soomaaliya oo sida dowladda Qatar oo kale dowladda ay ishayaan u horeyso farta lagu fiiqi karo. oo haddii keyskan uu yahay keys siyaasadaysan ama la tuumayo dadka badankiisa hadda ay tuumayaan waxaa weeye meeshaas hadda tilmaantay oo dowladda Imaaraadka
waxaan aaminsanahay in loolankii dowladda imaaraadka iyo dowladaha turkiga iyo dowladaha qatar iyo calaaqaad noocan maa in safaarada u joogaan dowladahaas dadadkooda ay isku dhex gooshaan laakiin aad moodid in dowladda soomaaliya iyo haaddeedii nabad sugiddu in iyada lafteeda lasoo dhex maray oo dowlada ay soo dhex mareen oo loolankii u dhexeeya dowladahaas in loo soo raray gudaha soomaaliya oo ah runtii arrin khatar ah oo runtii marin habaabin tiro badan ummadda soomaaliyeedna ku sababaysa haddaan caddaymo lagu kalsoonaan karo dhaba aan bannaanka lasoo dhigin sida ugu dhaqsaha badan waayahay fiqi adigoo raalli ah maadaama sirdoonka aad madax u ahayd arrimahan waad dareemi kartaa waxaa laga yaabaa inaad dee mucaarad ku tahay dowladda laakiin adigoo si dhaba u hadlaaya oo ka gudbaya eedaha aad jeedinaysa mararka qaarkood ama sida lagu arko adiga maxay kula tahay oo kaaga baxay warka nisa ma laga yaabaa inuu yahay war sax ah oo dal shisheeye oo arrinta soo maleegay ridwan waxaa weeye horta dadka le-anaya waa dadkaygii waa dad soomaaliyeed waa eheladaydii aniga ma siyaasadayn karo dadkaygii oo dhimanaya oo maaragtay aan waxba laga qabanayn oo ninkii eedda lahaa oo ahayd dadkaas amnigooda inuu ilaaliyo oo u xil saarnaa inuu sii ogaado al-shabaab inuu maantay twitterka ku soo qoro maaragtay eed dowlad kale oo siyaasadaysan oo dowlad kale loola jeedo asagoon caddaymihii bannaanka soo dhigin runtii arrintaasi waxaa weeye arrin mucaaradnimo ay geli karta maahan waa arrin arwaaxda dadka soomaaliyeed inaysan qiimo ugu fadhin muujinaysa weliba dee ninkii mas-uuliyadda lahaayo ee ahayd waxaan ognahay qaraxii 14 of october in maalmo kadib taliyihii nabad sugidda uu iscasilay oo maaragta barayshar la saaray halkaasi uu ku baxay maanta meeshii isaga barayshirka uu ka fuuli lahaa oo dayacaadda uu geystay ummadda indhihiisa ay ku soo jeeday inuu u saariyo meel kale oo iska rogo asagii waxaan u arkaynaa runtii arrintaasi haddii uusan soo bandhigin caddaymo lagu qanci karo inay tahay arrin marin habaabina arrin runtii shabaab loogu cudur daarayo arrin shabaabka cadowgii ummadda soomaaliyeed ay u arkayeen iyo aargoosigii la rabay in laga aargoosto aan la rabin dhankeeda in la aado oo halkaas loo jiheeyo in dowlado ishaystay iyo siyaasaadkoodii ay soo dhex galeen heerihii amniga oo halkaas maaragtay ummaddii lala aado marka arrintaasi arrin la aqbali kara maahan ridwan aan ka gudubno arrimahaas laakiin wax macluumaad ah oo aad is leedahay waa ay jiraan ma jirtaa marka laga hadlayo gaariga xamuulka ee qaraxiisa uu ka dhacay ex control gaarigu ma meeshuu ugu talagalay inuu ku qarxay kula tahay mise meel kaleu ku wajahnaa horta baabuurka taliyaha booliiskuna waxbuu ka sheegay ninkan la yidhaahdo guddoomiyaha gobolkuna dad iyo goobo muhiima ayaa loola dan lahaa buu yidhi runtii goob ka muhiimsanayd meeshaas oo shacabkii soomaaliyeed ay maaragtay joogaan ma jirin annagu intaan xogta hayno oo dadkii meesha iyo ambalaaskii tegey iyo baabuurka dhanka muqdishuu ka tegey wuxuuna u sii socday dhanka hadda afgooya dhankiisa u socday haddii uu muqdisho raba gudaheeda iyo goobo ka muhiimsan inuu isku qarxiyana wuu isku qarxin lahaa marka aniga waxaan isleeyahay hadafku wuxuu ahaan karay in dee goobtaasoo xataa ardayda meesha ku baaba'day badankoodu duleedka muqdisho jaamacado ku yaalla ayay tegayeen oo jaamacaddii banaadir iyo jaamacadda zamzam iyo oo magaalada muqdisho gudaheeda ay ka baxeen baabuurkuna xaggu u socday sidoo kale nimanka turkida oo walaalaha oo injineerada oo dhismaha waddadaas ku mashquulsanaana xaggay u socdeen aniga qiyaasteeda waxay tahay in taargetka ay ahaayeen labadaas nin oo turkida ah oo meesha ku dhimatay baabuurkuna magaalada muqdisho wuu ka tegey ayaguna inta badan daba socday waxaan isleenahay hadda xogahan soo baxayna waa xogo joornaallo ay qoreen turkiga nin qof joornaal uu ku qoray turkiga ku yaallo qof turkiyihii kadibna hay-adda nabad sugiddu ay taas soo xigatay haddana hay-adda nabad sugidda warkeedii isla joornaalkii lafteedii inuu xigtay marka waxaan isleenahay wax ka baxsan awoodda niisa iyo maaragtay ayay arrintani tahay laakiin waxay tahayba waxaa la rabaa hadda waxaan maqalnay inay madaxweynaha ay la fadhiyo oo taliyihii nabad sugidda uu la fadhiyo iyo guddoonkii labada gole ee baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihii laga yaabay ra-isul wasaaraha kama warhayo laakiin labada aqal ee baarlamaanka guddoomiyaashoodii inay la fadhiyaan uu leeyahay xog baan soo bandhigayaa laakiin kulli waxaasoo dhan madaxa oo dhulka laga ceshanayo ayaan u arkaa iyo taliyuhu inuu aadii isaga ku wajahnayd iyo dayacaadda ummaddan inuu rabo inuu iska rogo meel kalena aadiyo marka waxaan leenahay oo dalbanaynaa anigoo guddiga difaaca xogayaha ah anigoo xubin golaha shacabka ah anigoo eheladaydii iyo dadkaygii ay u badan yihiin dadka meeshaas ku dhintay waxaan dalbanaynaa taliyaha nabad sugiddu wuxuu xaafisyada gudaheeda uu ku sheegayo iyo wuxuu twitter ku sheegayo waa arwaaxdii dadka iyo dhiiggii
oo qoyan inuu maaragtay rabo dhexdoodii inuu ka dhex siyaasadeeyo. waxaan rabnaa wax dhabta ah oo xogta dhabta ah inuu noo u soo bandhigo hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha dalka inuu u soo bandhigo. hay-adda niisana intaan ka ognahay uma xil saarna iyadu inay qaraxyada ka hor tagto, inay argagixisada iyo cidda wax soo weeraraysa ama dowlad kale ha ahaato ama al-shabaab ha ahaatee inay ka hor tagtay leedahay. baaritaan ma ogin meel shaqada niisa ay ka mid noqotay inay baaraan dhacdooyinkan ka mid ah. aad baa umahadsan tahay. sanadkan hadda dhammaanaya ama waa u dhammaadaaba la dhihi karaaba, waxyaabo fara badan ayaa dalka ka dhacay oo qaraxyadaas iyo dilalka ay ka mid yihiin. maxaa la filan karaa sanadka cusub hadduu ilaahay idmo? sideese xaaladda wax looga bedeli karaa? ilan idinka laftirkiina idinkoo xildhibaanaha mas-uuliyadda ayaa idinka saaran dalka. mas-uuliyad weyn baana saaran runtii, waana mas-uuliyadda mar walbaba aan bannaanka la taagannahay in isla xisaabtan dhabihi yimaado, in ciddii mas-uuliyaddan dayacday dadka la soo hor istaajiyo, in hay-adaha amniga oo la siyaasadeeyey oo caqiidadoodii oo dhan ahayd inay cadowga iyo dadka difaaca cadowga dadka la diriraan, dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimadana difaacaan, in laga bedelay oo ay noqotay hay-ado kuraasta lagu maaragtay difaacdo. annaga marka sanadka soo socda sanad doorasho weeye, wuu ka sii xumaan doonaa qiyaasteenna haddii dee habdhaqankani uu sii socdo ah in kuraasta ilaalinteeda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu meesha degan yihiin keliya ilaalada iyo in loo badiyo iyo amniga, shacabkii iyo goobihii kalena ciidamadii laga soo wado oo ciidamadii galmudug qaarkood la geeyo, qaar jubbaland loo diyaariyo inay weerare ka geystaan. intii badnayd ciidamadii muqdisho joogtana waxaa loo raray oo booliiska ahayd, waxaa loo raray maaragtay dhuusamareeb baa la geeyey. dalka iyadoo doorasho uu gelayo waxaan sii qiyaasaynaa haddii aan ilaahay nooga rayn in maaragtay argagixisadu ay geysan doonaan dee weeraro ka xoogan kuwii hore oo weliba dee sanadkan dee mashquulka iyo maskaxda iyo kulli iyo waxay aadi doonaan sidii kuraasta madaxda iyo wixii maaragtay ay ugu soo noqon lahaayeen. marka waxaan leenahay madaxda, waxaan leenahay ha u soo jeestaan sanadkan. weliba ciidamadii amisomta waa la dhimayaa oo kun ka mid a ciidamada amisom 3 bilood oo u horeysa sanada dhalanaysa 2020 ayaa la qaadi doonaa. marka halkaas gaab weyn ayaa ka soo socda. ciidamo hadda u diyaar garoobay oo diyaara inay kala wareegaan goobihiina runtii ma aragno. marka waxaan leenahay dee dowladda iyo kulli tala noo taalo weeye. waxaana ku baraarujinaynaa in ciidamada loo daayo shaqooyinkooda oo arrimaha siyaasadda laga dhex saaro. aad ayaad u mahadsan tahay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo madax horey uga soo noqday hay-adda sirdoonka Soomaaliya. adigaa mudan waa mahadsanta. daawadayaal, waxaa naga xasuusinah in aanu la xiriirnay sirdoonka Soomaaliya iyo qaar ka tirsan madaxda bilayska oo aanay noo suuro gelin inaanu macluumaad ka weydiino waxyaabaha ku saabsan qaraxaas.